ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu burburinayo fadhiisimaha cadawga ka sameeyay deegaano dhaca dhanka xeebta ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayay ciidamada kumaandooska danab waxay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ka saareen deegaanada Jilib Marka iyo Gandarshe oo hoos yimaada degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoo halkaasina ka bilaabay howlgallo baaritaano ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanadaasi, isla markaasna ay ku baadigoobayaan maleeshiyaadka naflacaariga nabadiidka arxanlaawayaasha Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanaya isla marhaantana isu ekeysiinaya dadka shacabka ah. ciidanka ayaa intii ay howlgalka wadeen waxa ay ku burburiyeen fariisimo nabadiidka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadan, isla markaana waxa ay ku baabiyeen checkpointiyadii ay lacagta baadda uga qaadi jireen dadka isticmaala wadada xiriirisa deegaanadan. dhinaca kale waxa xusid mudan dadka shacabka ah ee ku nool deegaanadan oo in muddo dhib ku qabay kooxaha nabadiidka Al-Shabaab inay si diiran u soo dhaweeyaan ciidanka kumaandooska danab, iyagoo wajiyadooda aad ka dheehanaysay farxadda. howlgalkan waa howlgal qorsheysan oo isla markaana lagu kana mid ah howlgallada guud ahaan lagu cirib tirayo kooxda caadaystay dhibka shacabka Soomaaliyeed ee maleeshiyaadka arxanka daran ee Al-Shabaab. Shilaawo Cabdillaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka deegaanka Jilib Marka, gobolka Shabeellaha Hoose.